waxaan soo gaaray wafdi uu hogaaminayo xogayaha guud ee isbahaysiga ciidamada islaamka ee argagixisada dagaalanka Islamic Military Coalition for Counter-Terrorism amba التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. ujeedada ay u yimideen wafdiga xogayaha guud uu hogaaminayo oo aad u ballaaran waxa weeye in biri oo sabti ah 22 bisha uu furmo shirweyne lagu daahfuraayo mashaariic badan oo taxaalufku ba isbahaysigu ka fulinayo dalkeena hooyo anigoo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya isbahaysiga xaruntiisu tahay Riyadh waxaan idinkula wadaagayaa in isbahaysigu uu wadankeena ka fuli doono mashaariic waaweyn oo aad u muhiima oo biri la furfuri doono mashruuci ugu horeeyay oo ka hadlaya miidiyaha iyo nabadda sidee dal dagaalo sokeeye ka soo baxay haddana wajahaya argagixiso la dagaalan oo argagixiso ka dagaalamayso oo haddana wajahaya kala go'go iyo caynkaas wajahayo khataraha amnigiisa hadday noqon lahayd argagixiso hadday noqon lahayd maxaan ku idhaahdaa dagaal sokeeye hadday noqon lahayd dagaal maaragtay khilaafaad siyaasiya sidee miidiyihiisu u shaqeeyaa sidee miidiyihiisu amniga uga shaqeeyaa workshop oo ciwaankiisu sidaa yahay ayaa maalinka axadda marka maalinka sabtida la daafuro maalinka axadda workshopkaas bilaabo doona ilaa 4 waxaa loo sameyn doonaa dhammaan miidiyaha dalka hadday ahaa lahaayeen miidiyaha dowlad goboleedyada TV-yada hadday ahaa lahaayeen miidiyaha gaarka loo leeyahay sida TV-yada iyo raadiyoyaalka iyo hadday ahaa lahaayeen social media influencers oo dadka saameynta kula social mediaha ilaa 40 qof oo ka socda xarumahaas kala duwan ayaa workshopka loo furi doonaa kadibna waxaa jiri doona mashaariic kale oo ciidamada militariga lagu kabi doono oo hadday noqon lahayd tababarka iyo qalabaynta mashaariic kale waxaa jiri doona ideology-ga xagga fikirka ah oo xarumihii lagu xanaaneynayo dadka noocaasa iyo barnaamijyadii ku saabsanaa la sameynayo waxaa jiri doona mashruuc kale oo asagana amni iqtisaadi ku saabsan waxaa jiri doona mashruuc kale oo garsoorka sidee argagixiso garsoor loo saaraa ku saabsan oo maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo wasaaradda cadaaladda iyo money laundering-ka halkaas ay ka imaanayaan ilaa 10 iyo dhowr hay'adood oo hay'adaheena dawladda kamida ayaa mashaariicdaas kala duwan loo sameey doona oo ay ugu horeyso wasaaradda difaaca wasaaradda amniga wasaaradda warfaafinta oo mashruuceedu furmaayo maalinka axadda ah wasaaradda maaliyadda wasaaradda awqaafta hay'adda tubsan sanduuqa xasilinta xafiiska amniga qaranka immigrationka wasaaradaha kala duwan wasaaradda isgaarsiinta dhammaan wasaaradahaas mashaariic ku saabsan oo mid kastaba mashruuc gaar ah oo intuba la xiriira amniga qaranka sidee loo hagaajiyaa sidee loo taabageliyaa sidee capacity loo dhisaa sidee loo qalbeeyaa oo mashaariicdaas oo ilaa 2027 socod doona ayaa la furfuri doonaa biri aad ay u maasantii warbaahinta qaranka waxaad arki doontaan wixii faahfaahina iyo waxaasana shirka biri dhacaya ayaa laga faa'iidi doonaa dadka ku marti qaadan shirka oo wasaaraddu marti qaaday oo isbahaysigu marti qaaday waxaan rajaynaynaa inay shirkaas biri noo yimaadaan xilliga munaasabka ah oo ugu qoran invitation ay noo yimaadaan si shirku habsami